بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkani waa warbaahinta halbeega wararka waxaad ku soo dhawaataan warka warbaahinta qodobada ay idin soo gudbin doono waxaa ka mid noqonaya faahfaahin kala duwan oo ka soo baxaya qarax ka dhacay gobolka Shabeellaha Hoose qasaare ayaa jira waar idin soo gudbin doona fatahaada wabiga Shabeelle oo saameyn weyn u geystay magaalada Beledweyne wararkii ugu dambeeyay iyo Maxamed Cabdi Waare oo magacaabay guddiga gurmadka fatahaadaha ayaan idin la wadaagi doonaa maxaa ka jira wararka sheegaya in xafiisyada dawladda loo magacaabay hal beel oo kaliya Xasan Ali Khayre ayaa eedaasi loo jeedinaya wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ka hadashay sababtii uu baaqday kulankii fiinaalaha ee u dhexmarayay degmooyinka Waaperi iyo Darkeenley guddigii dhawaan uu magacaabay Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ee loo xil saaray dardargelinta doorashada dowlad goboleedka Galmudug oo doortay xubno sare qodobada ayaan idin la wadaagi doonaa saaxiibayaal channelkan subscribe dhaha calaamada kambalka furta muuqaalkana saaxiibayaal si share gareeya si ugu gaaraan saaxiibo fara badan oo channelkan ku xiran aynu ku bilownaa gobolka Shabeellaha Hoose faahfaahin kala duwan ayaa waxay ka soo baxayaan qarax ka dhacay gobolka Shabeellaha Hoose qaraxan oo ka dhacay deegaanka Muuri ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa galaaftay nolosha saddex qof oo rayid ah kuwaas oo la socday mootada loo yaqaan dhugdhugley qaraxan oo wadada dhinaceeda lagu aasay ayaa waxa uu ahaa bartilmaameedku gaari Cabdi Bilaahi oo ay la socdaan ciidamada militariga Soomaaliya balse askartu ka badbaadeen isla markaana uu haleelay mootadii ay saarnaayeen dadka rayidka ahi mootadan ayaa waxaa la sheegay inay ku sii jeeday dhinaca degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose waxaana la sheegayaa in gaariga Cabdi Bilaahi ay ku sii dhaweeday marka gaarigu dhaafayna miinadu haleeshay sidoo kale gaariga ayaa la sheegay inuu asna ku wajahnaa degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose goobjoogayaal ayaa waxay sheegeen ciidamada militarigu ay dhowr jeer rasaas u fureen ilaa hadda sama jirto wax khasaare rasaastaas ka dhashay oo ilaa hadda la xaqiijin karo ciidamada militariga oo horay ugu socdaali jiray wadadan ayaa waxaa jira marar fara badan oo ay qaraxyo ku qabsadaan wadadan xiriirisa magaalooyinka gobolka Shabeellaha Hoose hase yeeshee waxaana ka dhashay khasaare ciidamada soo gaara qaraxan ayaan haleelin gaarigii la damacsanaa ururka al-shabaab oo dagaal kula jira ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kooxda nabad ilaalinta midowga Afrika ayaa looga bartay qaraxada caynkan oo kala walow ilaa hadda aysan jirin cid qaraxani si rasmi ah u sheegatay dawladda federaalka Soomaaliya mas'uuliyiinteeda kala duwan ee ku safar wadada ayaa waxaa marar badan qarax lagu leegtay halkaasi waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaara mas'uuliyiinta halkaasi ku safraysa fatahaada wabiga Shabeelle ayaa waxaa lagu soo waramayaa in saameyn xooggan uu ku yeeshay magaalada Beledweyne xarumihii ganacsiga ayaa la sheegayaa inay xirmeen fatahaada wabiga Shabeelle ayaa si weyn u saameeyay magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan iyadoo kumanaan qoys ay ka barakaceen guryahoodii waxayna gaareen duleedka magaalada wariyaasha magaalada Beledweyne ayaa waxa ay soo sheegayaan in fatahaada wabiga Shabeelle uu sii kordhayo xaafadaha magaalada Beledweyne maalinba maalinta ka dambaysa ay biyo ku sii fidayaan waxaana kordhaya barakaca shacabka ay sameeyaan wariyaasha ayaa waxaa sidoo kale ku soo waramayaan in xilligan ay qabaan shacabku baqdin xoogan oo ku aadan inay xirmaan gebi ahaanba wadooyinka laamiga oo ku yaala magaalada Beledweyne maadaama qulqulka fatahaaduhu ay sii kordhiyaan ama ay sii xoogeysanayaan maamulka gobolka Hiiraan ayaa waxa ay kala hor sheegeen in ay dhibaato xoogan keeni karaan biyahan waxaana sheegeen in gebi ahaanba magaaladu hakad ama go'doon ay geli karto qoysaska ka barakacay magaalada Beledweyne ayaa muciin biday deegaan hoostaga degmadaasi halka ay nolol adag ku haysato madaxweynaha maamulka dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa waxa uu magacaabay guddiga gurmadka oo sheegtay inay dhibaatadan samata bixin doonaan fatahaadaha wabiga ayaa waxay sheegeen inay ka hortagi doonaan madaxweynaha ayaa digreeto waxa uu ku magacaabay guddigan oo ka kooban 14 xubnood waxaana uu wakiishay inay u gurmadaan shacabkan ay fatahaaduhu saameeyeen guddigan ayaa waxaa gudoomiye looga dhigay Cabdimahad Cabdullaahi Qoorgaab wasiirka wasaaradda gargaarka dowlad goboleedka Hirshabeelle guddigan ayaa waxaa lagu wadaa
inay la shaqeeyaan hay-adaha gurmadkaahi ee halkaasi kusii qulqulaya iyo guddigii qaran ee dhowaan uu magacaabay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali khayre. baraha bulshada ayaa waxaa la wareejinayay guryo fara badan oo ay biyuhu liqeen, shacab u badan caruur iyo duqow oo laga sii qulqulinayo magaalada beledweyne ayaa sanadihii lasoo dhaafay waxay noqotay mid u nugul fatahaadaha webiga shabeelle uu sameeyo, waana sanadkii labaad oo magaaladaasi laga barakacayo. dowladda federaalk soomaaliya iyo hay-adaha gurmadka ayaa waxay shacabku ka dalbanayaan inay soo gaaraan dhibaatadana ay ka samata bixiyaan, intii karaankoodahana ay la garab istaagaan. wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa waxay faahfaahin ka bixisay kulankii dhex mari lahaa degmooyinka waaberi iyo dharkeeley ee fiinalaha tartanka degmooyinka gobolka banaadir oo baaqday. dad badan ayaa isweydiinayay sababta keentay baaqashada kulan ay isugu yimaadeen wasaaradda dhalinyarada isboortiga xukuumadda federaalk soomaaliya, guddiga olombikada iyo xiriir kala duwan ee looga hadlayay baaqashada ciyaartii kama dambaysta ee tartanka kubadda cagta ee degmooyinka gobolka banaadir oo habeen hore dib u dhacday kadib markii ay korontadu ka tagtay garoonkii ciyaartu ka socotay. war murtiyeedkani kasoo baxay wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo ka koobnaa 9 qodob ayaa looga mahad celiyay wada shaqayntii wasaaradda ay la laheeday dowlad goboleedyada iyo xiriirada kubadda cagtahi muddadii ay jirtay xukuumadda xasan cali khayre. sidoo kale war murtiyeedkan ayaa waxaa looga dalbaday gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho Cumar Finish in si degdeg ah loo xalliyo arrimaha taagan. ilaa hadda ayaan waxaan loogeyn sababta ka dambaysa baaqashadii kulankii, hase yeeshee dad badan ayaa waxay isweydiinayaan sababta keentay, dad badanna waxay ka bixinayaan jawaabo kale. waa kan war murtiyeedkii kasoo baxay wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya kaasoo ku aadara qabsoomida kulanka iyo baaqashadii kulankaasi. jamhuuriyadda federaalk soomaaliya kulankeena saakay aan qaadanay waxaa ka soo baxay war murtiyeed kaas oo ah sida aan hadda sheegi doono haddii allaha awoodda la ogolaado. wuxuuna ku bilaabanayaa sidan: kulan ay isugu yimaadeen wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga, olombikada, guddiga olombikada iyo xiriirada kala duwan ee hoostaga ama ka midka ah olombikada. waxaa looga hadlayay kulankeena maanta baaqashada ciyaartii kama dambaysta ahayd ee dhex martay tartanka kubadda cagta degmooyinka gobolka banaadir oo ay iskugu soo hareen degmooyinka waaberi iyo dharkeeley. waxaana ka soo baxay qodobadan soo socda: 1. wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya, guddiga olombikada soomaaliyeed iyo xiriirada kala duwan waxay wada shaqayn joogto ah la leeyihiin dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir arrimaha horumarka isboortiga ku saabsan muddadii ay jirtay xukuumadda ra-iisul wasaare xasan cali khayre. 2. wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya, guddiga olombikada soomaaliyeed iyo xiriirada kala duwan waxaan mar kasta mahadnaq usoo jeedinaynaa shacabka soomaaliyeed ee taageera horumarka isboortiga soomaaliyeed oo 30 sano kadib tartamo caalami ah kasoo muuqday. 3. wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga soomaaliyeed ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya, guddiga olombikada soomaaliyeed iyo xiriirada kala duwan waxaan u mahad celinaynaa hay-adaha amniga oo gacan ka siiya qabashada tartamada dhinaca sugidda amniga. 4. wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya, guddiga olombikada soomaaliyeed iyo xiriirada kala duwan waxaan soo dhaweyneynaa una mahad celinaynaa u hambalyeyneynaa oo madaxda qaranka uga mahad celinaynaa una hambalyeyneynaa magacaabista guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Finish. 5.
wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya, guddiga olombikada soomaaliyeed iyo xiriirada kala duwan. waxaan sidoo kale u mahad celinaynaa telefishinka qaranka soomaaliyeed ee ka shaqeeya horumarka isboortiga iyo telefishinada kale ee gaarka loo leeyahay sida Astaan TV, Muqdisho Cable, Rajo TV, Universal TV. sidoo kale idaacadaha ama raadiyoyada oo ugu horeeyo raadiyo Muqdisho iyo raadiyo Kulmiye. sidaas la mid ah website-yada wakaaladda wararka. guud ahaan warka ka daawanayseen warbaahinta halbeega wararka intaasi ayaan ku soo koobaynaa saaxiibayaal nabadgelyo.